الكل قلدها نقادنا إن شاء الله. الله أكبر. waa kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago xogihii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale tirada dhaawacyada cirka isku sii shareerayso magaalada Luuq ee gobolka Gedo saacadba saacada ka dambaysa xaaladeedu aad ay u sii cakirmaysaa oo ay ka sii daraysaa sida iga muuqato sawirkan gadaashayda iga dambeeya ayaa qayb ka ah dadkii maanta halkaas ku nafwaayay askarigan aad u jeedan isagana halkan saaran waxa uu dul fadhiyaa nin si arxan darro halkaas loogu dhibaateeyay dhiigana ka qubanayo halkan laguma soo gudbin karo dhammaan xogahaas ayaa rabaa in halkan idinku kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horreysay ku soo gaaro muuqaalka fadlan noo la garo share garee meel dheer nala gaarsi aragtidiina qaybta safaalada ayaad inoogu reebi kartaan bogana haddii ay tahay markii ugu horreysay aad aragto fadlan nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibadeena oo followna soo dheh sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socda way soo dhawaada xaaladda magaalada Luuq ee gobolka Gedo saacadihii ugu dambeeyay cirka ayay isku sii shareertay oo walibana xaalad adag ayayna markaas ku sugan tahay maanta qayla dhaan culus ayaana laga soo warinayaa dadka halkaas ku dhaqan ayaa gabi ahaanba guryahooda isaga baxaya iyadoona markaas laga cabsi qabo in mar kale dagaal culus halkaas uu ka dhax qarxo iyadoo markaas u muuqato waqtigan la joogay in ay tahay mid markaas ee dagaal dhibaato weyn halkaas la isugu geysay aan waxba la isugu reebanin halkaas oo ka dhacay labada beelood halkaas ku dagaalamayna waa laba beelood oo madooyinkii ugu dambeeyayba xaaladoodu ay soo jiitamaysay iyadoo markaas hadda u muuqato in mar kale hadana ay labada dhinacba markaas isku hor fadhiyaan magaalada sidaad u jeedaan ninka halkan fadhiya ama askariga halkan fadhiya oo walibana si naxariis darro ah markaas muuqaalkana u duubaya nin dhalinyaro ah oo halkaas si arxan darro ugu dhiig baxaya ayuu dul fadhiya walibana muuqaal ayuu ka duubaya calool adeegiisa oo walibana su'aalo oo anshax ka baxsan ayuu halkan ku weydiinaya waana dhibaatada maanta halkaas ka jirta sidoo kale gabadha halkan sawirkeeda iga dambeeyay aad u jeedaan dadkii maanta halkaas ku nafweeyay ayay ka mid tahay iyadoona markaas magaalada Luuq ay xaaladeedu faraha ay ka baxday oo saacadba saacada ka dambeysay dagaalkeedu aad u sii xoogeysanayo oo labada beelood halkaasina isku hor fadhiyaan magaalada Luuq ee gobolka Gedo tani wali si rasmi ah loogama hadlin xaaladeeda iyo waliba sidoo kale waxyaabaha lagu damin karo dagaalka halkan ka jira iyadoona markaas la wada arkaya in maalinta ka dambaysa halkaas dad fara badan ay ku dhimanayaan isbitaalada magaaladaasi run ahaantii aad ayay u guuxdhaafeen meedadka iyo dhaawacyada kala duwan oo dagaalkan ayaana sababay in markaas tiro intaas leeg halkaas ay ku nafweydo mesela ay ku dhibaatoodo ama dhibaatooyin kala duwan ay kala kulanto maamulka degmada Luuq ayaa sidoo kale naftooda ay u taagan yihiin waqtigan la joogay in iyagu naftooda ay markaas halis ay gasho iyadoona markaas cabsidu ay mar walba marka ka sii dambaysa ay sii xoogeysanayso kaaga daran dadka dhaawacyada ah ayaa laga duubaya muuqaalo si arxan darro ah ee halkaasina baraha bulshada loogu baahinayo iyadoo xaaladda dagaalkuna ay tahay mid markaas labada dhinacba markaas ay kala sheeganayaan maamulka halkaas iyo waliba cidii ay maamuli lahayd maamulka Jubbaland wali arintan si rasmi ah uma uusan soo faragelin iyagoona markaas sheegay in ay ka wada xaajoon doonaan xaaladda halkan ama magaalada Luuq ee gobolka Gedo shalay ayay ahayd xilligan idin la wadaagnay muuqaalka ee markaas dhaawacyada isbitaalka lagu soo guray mar kale maanta ayayna halkaas ay ka aloosan tahay xaaladda degmada Luuq ee gobolka Gedo dawladda dhexe iyo waliba sidoo kale maamul goboleed dalka ayayna markaas baaq loo diray inay markaas arintan hoos u fiiriyaan ayna markaas ay wax ka qabtaan xaaladda halkaas ka socoto wixii warar kale ka soo kordha xaaladda halkaasina halkan idinku kula wadaagi doona saaxiibayaal ka mid noqda saaxiibadeena nagu xiran bogana follow soo dhaxmaasanidin